nabiguna muxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam 40 salaadood ninka takbiirada soo gaadha 40 maalmood baan leeyahay 40 maalmood ninka takbiirada soo gaadha shahaada baraa'a baa la siinaya inaanu ahlu naarka ku biiraynin xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam 40 yawman ninka takbiiratul ihraam ka qayb gala waa dadka helaya buu nabigu ku tilmaamaya baraa'a min annaar baraa'a min annifaaq waa laba shahaado idan waa qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay wuxuu kaloo nabigu ku daray laba nin oo ilaahay dartii isu jecel wax kale oo ka dhaxeeya aanu jirin laa hanti walaa qabiil walaa abtirsiinyo walaa wax kaloo isu keenaa ma jiro waxa isu keena wuxuu qofkaa ku jecel yahay uun ilaahay dartii inuu qof jidka wanaagsan maraya warajulaani taxaaba fi llah ilaahay dartii bay isu jeclaaday ijtamaca calayhi watafaraqa calayh taasunbaa isu keentay ku kala tagaana kuwaasina aakhiro meesha fiican bay ku diraan innagu kaynu u soconnaa waa kan ku xiga markaa dhowr kaluu nebigu sii sheegaya oo uu ka mid yahay nin wax bixin badan oo midigtiisu waxay bixiso bidixdiisu aanay ogeyn oo uu ka mid yahay nin ilaahay xusay keligii oo ilmeeyey way yar yihiin dadka intay habeenkii istaagaan keligood cibaadaystaan ee ooyaa way yar yihiin waa laga yaabaa jamacu markuu jooga imaam cod fiicani ku tukinaya inaad iska yara khushuucdo ama ilmaysidba laakiin inaad keligaa gurigaaga intaad istaagto warajulu ayuu nebigu ku tilmaamaya dakara allaha khaaliyan ilaahay xusay isagoo keliya cidila joogin fafaadat caynaa indhihiisu ooyeen waxaa kaloo haddaba ka mid ah dadkaa maalinta qiyaamay badbaadada noocaasii helaya rajulun طلبته أو دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها نبغى حول النين أي ويردي كباره مركه هو النين رجولة دريمية مركه الله بعدنا نلاش عادي قاعد أنت بدل رجع هنقولي بدل أو نبت الرادية ثاني وعكسها نين يسقي إلى صوت طيب رجل ay gabadhi hungurayso u yeedhay gabadhu gabadh caadiya maaha waa daatu mansabin wa jamaal waa gabadh quruxna leh xasabna leh ama manzila rafiica status leh social statuskeedu waa gabadh upper classka طبقة العليا كترسل إذا gabadhani magac iyo maamuus upper classka hadday ka tirsantay oo almasirey hanti haysatana waa u badantay waa gabadh magac iyo maamuus bale quruxna la siiyey waa wixii qofku uu gabadh ku dooni lahaay oo dhan ayay u muuqataa laakiin ku jawaabay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innii akhaafu allah gabadha ilaahay baan ka cabsanayaa yidhi ilaahay dartii uga tegey haddaad xumaha ilaahay dartii uga tagto waxau nabigu tilmaamayaa maalinta qiyaame ee dadku kadeedku haysto inta kadeedka ka badbaada inaad ku biirayso inta carshuraxmaanka hadhsanaysa inaad ku biirayso waxaa kaloo qur-aanku inoo sheegaya fadiiladaa sare dadka helay nebi ka mid ah yani iyadoo practicala markan iyadoo theory-yaa la sheegay laakiin iyadoo practicala ayaa ilaahay qisada haddana qur-aanka inoogu soo arooriyey nebi yuusuf oo wiil qurux badan ahaa laakiin saynu naqaano la tuuray walaaladii god ku rideen dabeetana qola socotay heshay ay iibsatay boqorka laga iibiyey gurigiisii imra'atulcasiis loo geeyey nebi yuusuf markaa gurigu ku nooliyey ninka meesha maamulo gurigiisiiya gabadhuu qabay oo culamaadu tafsiir ay yidhahdaan gabadh qurux badan bay ahayd suleekha ay sheegaan magaca oo ay qurux ku tilmaamaan ayaa nebi yuusuf hunguraysay nebi yuusufna wuu ka dhowrsaday
hunguri qura maaha waxay isku dayday inay talabto weliba waxay tijaabisay meel uu ku qanci karo inuu ku badbaadayo inay geyso وغلقت الأبواب بإلهي الباب دون واحد حدا وراودته التي هو في بيتها راودته ودون دون طيبة ليل المراودة سكة واحد حدتي سكة استيو هلي لهيت وحكى له الله الشارع وغلقت الأبواب الباب دنا واحد لما أوران غلقت واحد حدي انت ادكين كريسي ومالو امن دريمي كريو ايه هجاجستي كدبا waxay ku tiri hayta lak soo dhow adan diyaar ku ahay bayla inta badan way adagtay gabadhu hatta haday xumaa doonayso inuu yada ka soo baxo nolosha caadiga ee la yaqaano gabadhu xishoodun baa ku jira inta badan raggaa hunguri badan oo waxa kale ka yimaada laakiin tani waxay tilmaamaysaa qisadii oo cagsiya qofka hadlaya ee wax raadcaynaya ee wax doonaya gabadha lafteeda markaasuu diiday gabadh qurux iyo mansab iyo jamaal iyo guri fiican iyo meel hagaagsan leh weliba waa iyada sayid u ah waa addoonkeedii dhanka kale markaad eegtana وغريب انت بدن غريب كما حشو ميلان لغا غرانين marka tagto aad soranaysa demala waad fasaxantay laakiin aaba iyo adeera iyo reeru meelahay joogan waad sira dhudhubayaan ceeboobi baad sileedahay cidlada laakiin lama ceeboobo saxiga ma ama meela ciidaba ka garanay marka joogto lama ceeboobo nabiyullaahi muusa nabiyullaahi yuusuf tolkii lama joogo abihi reerahoodii waa laga keenay meela cidana ka garanayna waa adoon yar ka yahay uu jooga meelu adoon ka yahay waxaan cid garanayna uu jooga waa dhalinyaro qofku markuu dhalinyarada yahay iyo xoogii soo dhabi jooga waa ma guursan reer male oo ninku hadduu reer leeyahay waxa laga yaabaa in la yidhaahdo wuu dhowrsanaanaya reer buu haystaa reer male idan waxay yidhaahdaan meesha tan waxa yaalla dawaacu zina kullaha wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zina ku dhaco dhammaanteed waa nin waa dhalinyaro waa addoon oo magaca ilaashan maayo marka nolosha caadiga loo eego gabadhu iyo waa qurux badantay mansab bay leedahay iyaduu sayid u ah guri cidlaa bay joogtaa iyadaa u yeedhaysa xawaalay ibn alqayim ilaa 15 mas'alo tiriyay oo leeyahay dawaacu zina baa qisada ku jira laakiin muxuu ku jawaabay قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وحكو جواب قال معاذ الله إلهي بان كما قال يقول لي واحد شيء إلهي قفك مؤمن كاهي يتعود قفك مؤمن كاوها عادوا إن أنا حوقي سوقنا كوكل صونانين ربي إنه مقال صده وحكسته إنه ربي مقال صده إياك نعبد وإياك نستعين إلى وضعك هكا البدل بيننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التعوذ حمودا وحلي معاذ الله إلهي بمقنقلي وحارت المامية إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي الضمير كين ضلوا علسه وإلهي وين معي قدبو يقصو صاري ونبتي ربي يقصو صاري النعمة نسيي مع سيدي سوابا القدماي يعني سيدي دابا هادو قف واحد كسية qofka waad jeclaanaysaa waa dhaqanka aadanaha saqaabka ilaahay waa abuuray hadduu qof wax ku siiyo waad jeclaanaysaa qofku marka hadduu gallad iyo lib kugu leeyahay haddii aanad waxba tari karin calal aqal agtaada lagu xuman maayo ka warran qof hadduu wax ku siiyo oo wixii uu ku siiyey aad u adeegsato saad isaga u dhibi lahayd kaa dadku waxay yidhahdaan waa maxay waa la'iin oo qof xun qof aad wax siinayso oo haddana wixii aad siinaysay ku talagalay inuu adiga kugu dhibo
dhaqan xumada aynu inta badan ku dhaqannay ilaahay kula dhaqanna waa nooca ilaahay baa ina nimceeyey caafimaad ina siiyey waxa kalena siiyey awadan leh wax walba leh wixii uu inagu nimceeyey buu wuxuu yidhi bes waad mahadsantahay uu inagu dhaha cibaadadu waa ilaahay aynu leenahay waad mahadsantahay ilaahay aynu u mahadnaqayno halkaad ka mahadnaqi lahayd ayaad wixii uu nimco ku siiyey isaga macsidiisa ku adeegsatay saad isaga u caasii lahayd ayaad ku adeegsatay oo waxaad u faalo nabiyullaahi yuusuf markaa wuxuu leeyahay macaada allahi inahu rabbi axsana mahwaaya inahu laa yuflixu aalimuun ilaahay baan magan galay rabbigay meesha way wanaajiyey aalimkuna ma liibaano mufasiriintu tafsiir labaad bay saaraane waxay leeyihin waxa uu isna xurmaynayaa ilaalinaya ninkan abaalka ku leh waayo ninkani markuu soo iibsaday wuxuu ku yidhi wiilkaa ilaali buu ku yidhi saa suuradda ilaahay kaga warramaya akrimii matwaahu meeshaad dejinaysa iyo waxaasoo karaamee buu ku yidhi markaa odaygaa guriga keenay oo kala dardaarmay reerkiiyo gabadha in ninka kan si fiican loola dhaqmo idan wuxuu leeyahay nebi yuusuf abaallaawe ma ihi ninkii sidaa ii galay inaan haweenkiisa u weydaarto in xaaskiisa u weydaartaa inahu rabbii buu leeyahy inahu rabbii waa kii ii barbaariyey oo axsana mahwaaya akrimii mahwaahu waatii uu yidhiye waa axsana mahwaaya buu leeyahy degaankaygana fiicnaysiiyey marnaba dulmii maaya buu leeyahy inahu laa yuflixu aalimuun idan nabiyullaahi yuusuf waxaa ilaahay tusaale qur-aanka ugu dhigay ee tusaalayaasha waaweyn ee nebi yuusuf laynooga soo siiyey ay ka mid tahay cifada weliba cifatu lisaan iyo cifatu farji labadaba nebi yuusuf waa laga soo naqlinaya walaaladiisii wixii la ogaa ku sameeyey ee yidhi tuug buu ahaa iyo in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl ilahay wuxuu yidhi faasaraha yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahu xataa inuu ku yidhaahdo waar idinkaa tuuga wuu ka ceshooday cifatu lisaan carabkiisuu dhowray halkana farjigiisuu dhowray markay aragtay inaanu oggolayn ayay waxay isku dayday inay kufsato inay xoogto arrinku hayta laka soo dhaaf markan xoog buu maraya waxay isku dayday inay xoog ku qabato xal kale markaa muu hayo waa cararay cagtuu miciin biday inuu ordo oo baxsaduu isku dayay isagoo ordaya iyana ay eryeyso oo marada dhabarka ay dilaacisay ayay odaygii guriga lahaa ku kulmeen albaabka markay albaabka ku kulmeenna arrintiiba way rogto waxay tidhi maa jazaau man araada biahlik suu'an ilaa an yusjana oo cadaabun aliim waa maxay abaalmarka bay tidhi ninkan reerkaaga xumaha la doonay in la xidho iyadoo boqorka waddanku ama madaxweynaha waddanku haweenaydiisa lagu yidhaahdo ama waad la cayaaraysaa ama waa lagu xidhayaa hadduu boqorku xidhana si aad uga soo baxayso cidi garan mayso haddaad boqor uu xabsi kugu rido si aad uga soo bixi doonto iyana wax la garanaya maaha halkaa markay joogto nebi yuusuf rabbi buu ku noqday ilaahay buu baryayaa muxuu ilaahay weydiisanayaa rabbi الsijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh iyadu fadalika aladii lumtunanii fiih walaqad raawatuha can nafsihi faاstacsan bay tidhi walain lam yafcal ma aamuru layusjanan haddii waxaan rabaa uu samayn waayo bay leeda waa la xidhi kuwa la dulleeyena wuu ka mid noqon haddii lagu yidhaahdo xabsi iyo kala dooro hadda ma aha dumarka dhulkooda maraya iska dah halkan waxay joogtaa xabsi iyo qoyska boqortooyada inaad la tumataad kala dooranaysaa nebi yuusuf markaana xabsigu doortay inaan rabbi caasiyo ayaa wax walba ka xun buu leeyahy saa daraaddeed wuxuu leeyahy rabbi الsijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahu xabsiga ayaa agtayda lagaga kalgacal badanya waxay igu yeedhayaan inaan xabsi galo ayaa ka roon buu leeyahy
إلهينا سبحانه وتعالى وحط المام يا مرك ولي بوحد وإلا تصرف عني كيدهن أسب إليهن وأكون من الجاهلين إلى أو هداند مكر جود يا خيام جود يا نجر تودا هداند أضو يدافنين وإلك ده يقول يا أخي هداي دعوة سنة وحمقرة تدا كبيرة يا جاهلة قف كستو إلهي عاصية جاهلة جهل ومعلومات كماها علمه علمه ومعلومات ماذا حاجة كتيرة معها علمه هو دورسان وانت هتكون قلتا علمية انت تربي كل وين هي يا محارمتي سكت كقاب صنيسو يا إلهي سبحانه وتعالى وحني معك السيئة أنا دواء بالقدينين مع سيدي سكو سميسو سادر هذا النبي يوسف عليه له حفصه أيان نام وحي ويريان هدي أنا ضدوي دورنا واتشبيا إلهي وحليه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إلهي الدعاء دي مكاقبل دعاء دي مركو لقى أقبلي محال لو سمي حبسي قال لك إيه إذا الدعاء لقى أقبلي وامحي حماها هي حبسي حماها حن مركا كان حبسي قال واحل وحماها سا إلهي سودا فيه دبتنا حبس على كان حبسي قال إلهي سيدا فيه يوم حل قدقي مضح إلا وكان نقضي وزير كوطن كتلي إلا ومركي دبي قاعدي ودور سونيد ودور سنة هذا طريقة كانتي أفرتي دبا أيها الأحبة نبينا عليه الصلاة والسلام حينات المامي من يضمن لي بين لحيي وما بين الرجلين يا لبدي سدان انت ورنا حيسة الضمانة قاضية إنه يلاليه يا لبدي سادين انت ورنا حيسة وعرب يفرجك نبي محمد بن حلي كما ضمانة قاضية إنه عرب كيس يلالنا يوم وأنو حماك كنا واقعين فرجك كيس يلالنا يوم وأنو حرام كدونا نين هذا ضمانة ده إنه الله نمادنا نبي محمد نبي حلي أضمن له الجنة أن الجنة أيام ضمانة قاضية حديث البخاري هذا إذا قصاص ما يسان وبلغ هكا صوب بحضان أنه حندي بلغ قاضي ابن النبي عليه الصلاة والسلام من الجنة لسان إذا دور سوندو وعبادة كهبين ودن تاجن وجاري كرتا هذا عرب كان يفرج كاكا قوة دورة كم من نقطة